بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan kalsoonida naftaada. insha Allah muuqaalkan waxaan ku baran doonaa sida aad naftaada ugu kalsoonaan lahayd iyo wadooyinka aad u mari lahayd. daawasho wacan. magacaygu waa Shamhaad Maxamed. channelkaad naga daawanaysan waa Shamhaad Xaaji. fadlan waxaan kaa codsanaa inaad muuqaalkan like saarto, la wadaagto asxaabtaada, subscribe noo saarto si aan u soo badino muuqaalo caynkan ah. anigana waxay tahay dhiirigelin si aad la wadaago mowduucyo caynkan ah. kalsoonidu waa bafuurka qabashada wax kasta iyo dhaqaajiyaha doonista nafta. haddii aanad lahayn kalsooni haba yaraato way adagtahay in aad kalsooni sii kordhisataa. marka waxaad u baahan tahay awood gudeed si aad u dhisto kalsooni xoogan. hagahan ayaa kuuga tusaaleyn doona hanaanka aad u mari doonto dhisida kalsooni mugle weyna ka fududaan doontaa sida aad hadda moodayso. ku xidhnaba awoodda gudahaaga. sida caadiga ah qofka aan isku kalsoonayn waa qof ka go-ay oo aan xidhiidh tolmoolo lahayn awoodaha gudihiisa. sideen ku ogaan karaa? waayo awoodaada gudeed waa halka ay kasoo hanaqaado kalsoonida. haddii aan ku weydiiyey in aad ka warbixiso naftaada, waxaa suuragal ah in aad ka bilowdo muuqaalkaaga duleed ama doorarka aad ka ciyaarto nolosha maalinlaha ah sida hooyo, caruur, oori, shaqaale, aabbo, walaal, milkiile iyo wix lamid ah. laakiin waxaasoo dhani maaha cida aad tahay, waa waxa aad qabato. inaad si un wax ugu sheegi kari weydo awoodaha gudahaaga, dhexceygaaga iyo noloshaada gudeed waxay markhaati cad ka tahay in aanad aqoon iyo xiriir toona la lahayn gudahaaga. sidaa darteedna aanad kalsooni dhadhamin, aanad dareemin ama hantiyin. qofka aad tahay waa dhadhanka dhabta ah ee jiritaankaaga iyo ahaanshahaaga. jiritaankaaguna waxa uu noqon karaa 4 mid un: mid ruuxeed, mid maskaxeed, mid dareen iyo mid jir. muhiim ma ahan halbeegani. hadda waxaynu keliya ka qaadanaynaa xaqiiqada ah in aanad keliya ka koobnayn mijo, madax, calool iyo indho. aan si kale kuugu dhiga matihid oo keliya muuqaal guud oo hadda akhriyaya kelmadahan. u soo qaybta xigta.